wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galinkii dambe maanta gaaray degmada Wasiil ee gobolka Mudug halkaas oo ay fariisin ay ku leeyihiin ciidamada daraawiishta iyo kuwa dadka deegaanka kuwaas oo dagaal adag horay ula galay kooxda Al-Shabaab. wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ku welinayay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxaana degmada Wasiil ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madax ka tirsan Galmudug iyo qaybaha bulshada ee ku dhaqan degmada Wasiil kuwaas oo ku dhawaaqay ay ku soo dhaweynayaan wafdiga hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud Qorqor iyo mas'uuliyiintii kale ee halkaasi ku sugnaa ayaa waxay kormeer ay ku tageen goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dadka deegaanka kuwaas oo ay ka dhageysteen baahidooda. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa sheegay in ciidamada Wasiil jooga ay kaalin weyn ay ka geysteen xoreynta deegaano badan oo horey ugu sugnaayeen kooxda Al-Shabaab. sheegay madaxweyne waxay soo weerareen khawaarijtu 26 Juun ee 2021 iyagoo ku talagalkoodu ahaa inay dhibaato weyn u geystaan deegaanada Galmudug oo ay ka soo abaareen marka iyada ah Wasiil ciidamada halkaan jooga oo isugu jira ciidanka daraawiishta iyo ciidamada deegaanka oo geesiyaasha ayaa gaashaanka u daluuray maalintaas gacanta loogu dhiftay bay uga maqan yihiin Wasiil iyo nawaaxigeeda. halka runtii deegaanka Wasiil iyo deegaamada u dhow iyo ciidamadan aad u jeedo waa dadkii maalmaha aan tilmaamayno masaafo dheer marsiiyay khawaarijta. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay dadka reer Wasiil kaalinta ay ka geysteen dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. magaaladan Wasiil muhiimad gaar ah ay leedahay laana shabaabku khawaarijtu haddii halkan inta qabsadaan Wasiil ay ku guuleystaan hobyana waa ku guuleysan lahaayeen laana hobyo meel go'doon oo gooni u go'anay noqon lahayd in magaaladan marka laga eriyay oo lagu laayay oo laga difaacay waxay leedahay muhiimad aad iyo aad u weyn ayay lahayd guusheeduna guul aad iyo aad u weyn ayay ahayd. awoodda halkan ka muuqata ee hortaala iyo midda gadaashiina maxaan ku raadayay taaganba waa sidii muxuu xildhibaan Sabulursho u sheegayo hagaro hadaanay jirin xaradheer shabaab ma joogeen maanta marka waxaan leenahay horta calaamada guusha ugu horeyso waa xaradheere iyo inta ka sokayso oo maxaan ku raadayay raafka la sii mariyo waxa intaas hartay waa laga dhawaajiyay ayadana aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan iyo dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada isla jira iyo midda Galmudug gaar ahaan wax ay heli karaan ama ay soo haaba karaan oo la ka hakranayo ama dib loola dhacayo ma jiraan laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego dowladdiinu tabarteedu waa yar tahay waxa tabarteeda yareeyayna waa nimankaas khawaarijta waay dowlad weyn oo dowladaha Afrika jiro ugu magac weyn ugu awood badan aan taariikhda ahaan jirna waa la og yahay. Libna Cajiib Xaaji TV Universal Galkacyo.